أجداه كهذينا وأمني ركبنا صاحب بدأ يركز الشيكيين حالة أمنية إننا أدفعنا وغيرها إننا أدفعنا حتى كذا أدعى سمدين جونا كريا بالضبط إذا نروح يكون جبناهي وعيدا كفارح عيدا كسعيد عيدا كهبل وأنا نصيب دخل وعلى هدينا وحنا ترتل مع ما نكستبا ووحي مقرأيس أيام خلاقا كل فرد في كهري وحنا كهذيني حالة جود أمني وسيد برتويتات ما تنا هاللوير وحلا ويدي سادنا المشي تجنايس ها آيات القرآن هي ثم لا يموت فيها ولا يحيا محيني شيء يا مدن ريال لبت هدلك كتش داهي وينك أنا قرية مدن ريال ماني والبأمني جينا كشكينا ما أمني وقبشوا بهاي مدحوينا يا مدحوينا كحيان بين الدوراني حلوانا ولا ما يقال waxaan leeyahay mudanayaal maantay xaaladina xaalad ka bedelan bay ahayd waciyadii hore waana ku mahadsantihiin taariikhda qof walba wax xusaysa maalin buu leeyahay maanta waa maalinteennii kala fadhiga kale ay ka muuqano meesha caqabadu ay ka jirana tilmaami mayno oo isla garanayna hadhow yana isku xaman waa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka أمنينا إدخل لو يدين مايو يبدأ من لو نقول مايو إنها أنا كذا بماينو مدن ريال هذا حلقة وحين فردنا والشقاين كان دايب كمدا ما أنت مركز الشقاء لأننا عندما يسترنو وواجبات كانوا لهين ما أنت يتدك تصنو لأنه الشرق درهات بيها يدوحوا يري قبل كبري قراسة دقالها وحيسي يعني كوحة كله أنا أفكر يوم قبل كريبا كوحة كله ولا سياحي أنا وقرم من مال إذا التحكمان يعني المركز كوع الأذن وحنا نسقرين مدن أيام مدحوينها هي مدحوين كلجيك حسانات خلاقة أنا يا دورني وحنا ودفنا أمني يوحي نظام يدقاله أنت واقف الشمال وغيرها إن مقالة سيقول أحمد مايو بسم الله الرحمن الرحيم أبو محسن وقت ذلك الشيء أنت شيء حيد علي ما أنت جنكي هنا مرفع أي شيء بعدين جنيه بارسي بارلمان أما شيء بعدين مجالنا جنيه كسبة بعادها كان حكوا الرئي اسكندرية رمضان وبرلمان في الدولة رمضان وبرلمان في تجري waxayna ahayd runtii mooshin qiimo leh walow mooshinkaasi xaqiiqda uu ku sii socday in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba xilka laga qaado baxsaanta laga qaado laakiin waxaad moodaa shaqo badan oo ay xalay qabteen in ay madaxweynuhu iska weeciyey kuna weeciyey guddoonka baarlamaanku ku weeciyey golahiisa wasiiradu marka taa waxay ka tarjumaysaa waxyaabo badan oo isbiirsaday kacdoon shacab oo jira dhibaatooyin fara badan oo intaa uu xukunka jiray madaxda ama hoggaanku ahaa cabdiweli isbiirsanayay haddana ay keentay stageka maanta aan joogno oo ahaa in golahiisii wasiirada shaqadii laga ayriyey injineer maxamuud ogaantaadan waxaad ii sheegtay in mooshinkan maanta baarlamaanku ama kalsoonida ay kala laabteen xukuumaddu inay ku tacalluqday in ayba madaxweynaha xilka ka tuuraan arrintan bal sidee ku timid faahfaahin badan ka bixiyay iminka xiisadan waxay ku timid waxyaabo badan oo isbiirsaday oo uu runtii mas-uul ka yahay madaxweynaha xaqiiqdii carada maanta lagala lacay golaha wasiirada waxa weeyaan golaha wasiirada waxay ku shaqeeyaan sakarka iyo siyaasadda madaxweynaha dabcan waa garan karaa cid kasta oo siyaasi ah in uu ku sii jeeday maanta in kalsoonida golaha wasiirada arrintaasi ku sii jeeday madaxweynaha isagaa mas-uulka ahaa dalka siyaasadiisa iyaguna waxay ku shaqeynayeen sakarka iyo siyaasadda madaxweynaha mideeda kaleeto waxaa weeye wax badan oo isbiirbiirsaday dadka biniaadamka ah wax badan baad been u sheegi kartaa laakiin waxaan u malaynayaa inay soo gabagaboobayso dharka imaanayso
waxaa jirta dhibaatooyin fara badan oo shacabku ay tirsanayaan sida kan ugu horeysa oo ah warshada lacagta daabacda oo shilin soomaaliga daabacda oo ku taalla bangiga boosaaso dhexdiisa oo madaxweynuhu dhowr jeer intii baarlamaanka looga yeeray uu xaqiray dalka waa la wada joogaa midna dibadda intuu ka yimid man mooga waxa meesha ka socda cid walba waa og tahay wixii xalay kusoo kordhay dalka madaxweynuhu waa wintay maalin walbana waa uu daabaca taa waxay keenaysaa warqada cad oo efor ah in uu daabaco lacagta hard currency-ga ah ee US dollarkan ay jeebkiisa ku dhacdo xaqiiqda markaan kuu sheego halkan waxaa ku ceertoodaya oo ay hanti u noqonaysa lacagtaasi eforka ama warqadahaasi baybarka ah dadkii hantiyayaasha ah waxaana gacantooda ka baxaysa lacagtii hard currency-ga ah oo jeebkii hogaanka ku dhacayso oo markaas suu doona ka yeelayo waxaa imaanayso culays fara badan baa imaanayo halkaasaana dhibaatada ka imaanaysa dhibaatadaasuna waxay ka mid tahay qayb un ka timid caradii dadka iyo maadaama shacabku ay matalayaan xildhibaanada waayahay waxaad ii sheegtay in madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli gaas isaga uu ka dambeeyey go-aankii laga qaatay golaha wasiirada sidee buu ugu dambeyn karaa isagu haddii wasiiradan shaqadooda uusan ku qanacsaneen uu xaq u leeyahay inuu xilka ka qaado ama uu bedelo wasiirkii uusan ku qanacsaneen maxaa keenaya in uu golaha baarlamaanka kala hadlu yidhaahdo kalsoonidii kala laabta xaqiiqii ma aha markaan ku leeyahay golaha baarlamaanka isagaa soo abaabulay in ay ka qaadaan xasaanada ay kala noqdaan golaha wasiirada taa macquul ma aha laakiin waxaan ku leeyahay mooshin isaga ku wajahan maadaama isagu laba daro mid kala doora wey mooshin isaga ku wajahan in uu qarashaad iyo ku bixiyo siduu doonaba markaa ku weeciyo ama ha noqoto dadaal fara badan iyo juhdi badan uu geliyo instead isaga mooshinkaas uu ku wajahnaan lahaa in uu ku weeciyo baarlamaanka taasi waxa weeyaan waa horta waa wax runtii lagu samaynayo leeyahay analysis ah dhanka siyaasadda xaggeeda waxaa dhici kara laakiin xaqiiqda markaan ku sheego xalay oo ugu dambeysay mooshinka wuxuu ku wajahnaa cabdiweli uu ku wajahnaa cabdiweliba hadduu ku wajahan yahay waxa weeya maamulkiisa iyo dhan buu ku wajahan yahay haddaba haddii golaha wasiirada markaa lagu weeciyeyna hadda waxaan u malaynayaa marna ka fursanayso cabdiweli in uu ku wajahnaado waayo inta uu sameeyey oo loogu dulqaatay baa caradaa ka badan dalkina waa garanaysaa maanta waxa uu ku sugan yahay haddii la oran lahaa xagga nabadda haddii loo garan lahaa xagga dhaqaalaha cid walba waa garanaysaa ay daxda saarantahay go-aanka baarlamaanka ay qaateen marka maxaa lagu macnayn karaa waxaa lagu macnayn karaa cid kastoo siyaasi ah waxgarad ah oo siyaasadda dhowr sano kusoo jirtay ama sanadayaal kusoo jiray in maamulkan ay kaga dhammaatay puntlandna ay u baahan tahay isbedel dhab ah dowladnimo dhab ah waxaan u malaynayaa maraykan ay soo istiimayso dowlad dhab ah in maamulkan ay yeelan doono mar haddii aad moodaysid in xildhibaanada oo ka mas-uula shacabka reer puntland inay gilgilasho ka bilaabeen waxa cabdiweli ku kacay waxaad mar soo hadal qaaday in lacagahan been abuurka la daabacayo inkastoo aad eedda saartay inuu mas-uuliyadda leeyahay madaxweynaha haddana waxaa gobolka ka jira bal qalqal ah lacagtan been abuurka ah soo lama dhigi karo ganacsatada dhanka puntland ku sugan lacagaha daabacaya ee maamulka ma ah madaxweynuhu waa dhaqalyahan waana og yahay waana garan karaya laakiin waxaad moodaa inuu iska dhagatiray inaysan u arkin shacabka reer puntland kuwa wax fahmaya lacagahan been abuurka ah oo uu samaynayo waxa uu ka doorbiday in ay dowladdu shaqayso waxa uu ka doorbiday in lacagta hard currency-ga ee dollarka jeebkiisa ay kusoo xaroodaan cashuurta waxaa lagu bixiyaa lacag dollar ah marka lacagta kale waa la daabacaya waxaa lagu soo bedelaya lacag dollar waa garanaysaa waxaasoo dhan waxay ku arooreysaa madaxtooyada madaxweynaha iyo inta kaagdhow marka taa iyadaana waxay keenaysaa saboolnimay keenaysaa dalka intiisii kaleento dadkii lacagta lahaana waxaa dhibaato ku noqonaysa inay heli waayaan hard currency-ga wax kusoo iibsanayaan lacagta shilin soomaaliga ee la daabacaya oo ah lacagta eforka la yaqaana ama paperkan caadiga ah oo aan inaba ha yaraatee xuduudaha puntland marka ay ka baxdo oo aysan ka shaqayn hadda waa garan karaysaa macnaha iyo faa'iidada ay leedahay qofka marka looga bedesho dollar taasi waxay la mid tahay sidaan anigu u arkayo maamulka uu hogaanka u hayo cabdiweli inay isbaara u dhigtay waan u arkaa waxba kama duwana isagoo ama isbaara u dhigtay ama baad u dhigtay oo yidhi lacagta hard currency-ga jeebkiina ku jirta waa inaan la baxaa oo aynu kugu bedelaa waraaqa caadi ah waxba ma dhaanto yani waa sidaas oo kaleento wey waayahay kacdoon baa jira oo dadka qaarba waxaa meelaha qaar laga dareemayaa inay dowladdu ku kacsan yihiin sida burtulne iyo boosaaso kacdoonadii ka dhacay ogaantadan shacabku hadda
iyo xiriirka ka dhexeeya dowladda Cabduligaas xiriirka dowladda Puntland shacabka aad buu u liitaa xaqiiqdii marka uu sheego shacabka Puntland waa shacab fiican waa shacab dulqaad badan waaye dadka marka loo eego laakiin xaqiiqdii hadda qofka si uu arag anigu waxaan aaminsanahay shacabku inuu yahay shacabka ugu wanaagsan intii la dulqaadan karana waa dulqaateen kacdoonku kuma filna oo kaliya boosaaso Puntlandna waa ka dhacay oo gobolka mudug ka tirsan xamii waxa weeyaan kacdoonka oo dhan way haystaa waa garan karaysaa maanta dalkaayo waxa ka socda iyo xaqiiqdii meesha ay marayso sanad la magacaabay ama ay timid dowladda kale ee hoggaanka u hay Cabdiweli waa garan karaysaa ammaanka Puntland halka uu marayo waxa garan karaysaa ciidanka mushaharka aan la siin baa garan karaysaa halka uu marayo aan daryeel la siinin habeen waxay keenaysaa iyaduna mid kale oo ah astaaka ama dhibaatooyinka Cabdiweli u geystay dalka waxaa jirta inaan mushaharkii dowladda si toos ah loo bixin haddii noqon lahayn shaqaalihii rayidka ahaa iyo haddii noqon lahaayeen ciidankiiba lacagaad continue ah oo aan kala joogsi lahayn oo la daabacayo marka waxaad moodaa Cabdiweli dalka inuusan danba ka lahayn dalka iyo dadka waxa ku nool laba dad wada arkaba markaan arkayo dhaqanka uu ku dhaqmayo marka waqtigii waa la gaaray sidaan filaayo waxaan u malaynayaa in wajhi kale la geli doono oo ay dowladda soo istiinayso dowladnimo dhab ah oo reer Puntland ugu dhawaado insha Allah injineer haddii aan ugu laabano dib xiisadii siyaasadeed ee maanta dhacday wararka qaar waxay sheegayaan in lacag imaaraadka ka timid oo 50 ahayd in la isku qabtay oo la sheegay lacagtaas in horumar lagu sameynayo dhowr wada lagu dhisay hase ahaatee baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo madaxtooyadii lacagtaas la isku maandhaafay arrintan ay keentay in markii dambe baarlamaanka go'aankan qaataan arrimaha maxaa kala socota waxaan kala socdaa horena waa uga hadlay Cabdiweli heshiisyo ayuu dibadda la soo galaa ama ha lagu soo siiyo lacago horumarisa ama ha lagu soo siiyo lacaga kaleento Cabdiweli dalka intuu ku soo noqdo heshiisyada dibadda la soo galo baarlamaanka ma horkeenin horena uma dhicin waa ku sheegaya baarlamaanku waxa uu haystaa waxa uu isagu leeyahay shacabka reer Puntland waxa uu haystaa baan waxba garan karin Cabdiweli dambiyo fara badan ayuu ka galay intaa waxa weeye baarlamaanku waa sugaayeen shacabka reer Puntland dulqaad xoog leh ayay ka bujeen lacag laga soo siiyay waxa lagu sheegayay 15 milyan 3 milyan iyo barna waxa uu ku bixiyay 2 milyan bar airportka 1 milyan wada ayuu ku bixiyay hayeshe ma soo marin nidaamkii umana sharaxin mana horteedin heshiiskii dadka ahaa ula soo galay dibadda marka waxaad moodaa inuu hareer maray shuruucdii dalka u degsanayd mar haddii shuruucdii dalka u degsanayd oo hareer maray warbixin dabcan uusan siinin baarlamaanka marka baarlamaanku inay waajibaadkooda fushanayaan waxaan u malaynayaa cidna caadi karsa